السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسودو هذا جانال كيغا بردوسيس كفيلان ومركا نيو فيديو بليس هدي اي تايم مركي كوغو هوريسا او جانال كسو بوقتو حكا عدسانا نسكرب كريسو أصحابتا هذا كالسي وداكتو كما سنتا داوشد موقالكا أصحابي سودو هذا آد إياد إيدين سودوينايا الحمد لله إلهي مهضو دن وسكناتي isoo celiyey mar kale anoo caafimaad qabo waxaa rajeynaa idinkan inaa caafimaad qabtiin inta xanuunsan alla subxaana watacaala allaha caafiyo inta dhimata alla subxaana watacaala allah u naxariista inta safarka allah u fududa qof walba oo muraad lana muraadkiisa alla subxaana watacaala allah u sahlo saxaabay isku soo noqdo wanaagsan aad iyo aada ugu faraxsanaa inaan mar kale video cusub idinla wadaagayo alxamdulilah waxaa idinka codsanaya mar kale wiil yar habar oo naga xanuunsan horena ugu duceyseen inaan ugu soo duceysaan inuu ilaahay subxaana watacaala caafimaad sariica siiyo intaan awlaadhiisana awlaad baariyan oo tayibiin quratul cayni ilaahay subxaana watacaala allah ku irsaaqo intay ka xanuunsan yihiin alla subxaana watacaala allah u caafiyo waxaan rabaa fiidiyogan inaan caawa uga hadlo fiideo waqtiga aan cod saaraa waqti aada u dambe arrin murugale oo ka dhacday wadankan Masar dadka qaar oo Masar ku nool way ogyihiin dadka qaarna inay ogeena dhici karto marka arrintaas sida aan uga foolajignaano ilaahay naga najiyo subxaana watacaala aan rabaa insha Allah tacaala inaan uga hadlo arrintaas biidhnillaahi tacaala u faahfaahiyo wixii maxaa la baraarujinina aan iska baraarujin insha Allah tacaala maadaama aan wadankeena wadan aan ahayn aan ku noolnahay marka haddii uusan janaalka uu ku subscribe garaysnayn please ma garaacataa subscribe isaar haddii aad maxaa la dhahaa aada weli like saarin please waa kaa codsana waa iga codsi like saar siina share gareeb saacadaada kale la sii wadaaga iyo meelo badan ku share garee insha Allah soo videoga meel dheer oo u gaaro maadaama uu yahay video baraarujin ah wadanka Masar waxaa ka dhacday maxaa la dhahaa wiil yar oo Yaasiin la dhaho dadka dhan intii ka fiirsatay fiidiyoyadii meelaha dhan way wada aragtay yani telefishinada meel walba looga hadlay dadkan ciidan Masaarida dadkooda dhan kuwa social media ku jira kulli way ka wada hadleen soo marka maanta waxaa soo qaataani hooyooyin badan oo waxaa jira carabi si fiican u aqoon ama wadanka ku cusub wadanka Masar jooga arrintan aan rabo inaan ka hadlana waxay ka dhacday wadankan Masar wiil yar oo Yaasiin lagu magacaabo oo ilmaha lagu qiyaasay 5 jirka ilaa meelahaas yani kejiyada dhigto kulli cunug weyn qofna uma masqul moodis laakiin cunug yar waa ilaa 6 jir 5 jir meelahaas ilmaha kejiyada dhigto waa 5 jir iyo wax ka yar kulli marka wiilkaas yarkaa iskool uu dhiga jiray iskoolka markuu dhiga jiray waxaa dib u geystay ninka iskoolka maxaa la dhahaa maamulaha ka ah oo oday weyn oo 73 jir sida la sheegay ayaa dib u geystay waxa odaygaas u soo waxay jiray oo cunug yarkaa mar walba u keeni jirtay waxa ahayd naag kamida naagaha oo iskoolka ka shaqeeyo oo kuwa caruurta xanaaneeyo musqulaha iyo waxa geeyo soo mar walbaba cunuga yarkaan cunugaas kaliya ma ahayn wuxuu dhibka ku dhacay laakiin cunugaas ayaa lagu ogaaday cunuga wuxuu dhibka ku socday muddo sanad ah ayuu dhibkaas ku socday oo saas loo dhibaateynayay oo maxaa la dhahaa ninka oo maamulaha mar walba naagta intay u soo keento oo maxasiyo cunuga yarkaa dhahayo musqul uma baahni musqusha la geeyo ayaa wax xuno subxaanallah wal ciyaadu billah lagu sameyn jiray wiilka yarka marka hooyadiisa markii dambe aragtay hooyadiisa dhaqaatiirtay la wadaagtay ay u geysay markii la fiiriyay waxaa la ogaaday cunug yarka in dhib loo geystay soo sidii lagu soo xiray ninkii iyo dadkii ka dambeeyay oo dhan waxaana lagu xukumay xabsi daa'im sida la sheegay inkastoo oo hadda maxaa la dhahaa meelaha qaranka aqriya ninka inuu nin aad u lacag badan yahay ka cabsoonaya dadka inuu lacag badan inta dhiibo yani laga daayo laakiin waxay codsanayaan waalidiinta dhalay iyo dadka Masaaridaba in qoorta laga daldalo oo maxaa la dhahaa la dilo ninka marka haddii aan soo laabto tan oo Soomaalideena oo wadankan aan joogno waalidiin badan oo luqadda aqoon ayaa joogto caruurteena inta badan ayagoo luqadda aqoonin
oo yaryar oo wadanka hadda la keena hore iskoolka geynaa. Dhibaatada ugu weyna waxay ku dhacaysaa cunuga markuu uusan wax ku sheego uusan aqoonin. Marka hooyooyinka Soomaaliyeed wadanka Masar degan caruurtooda iskoolka aada ama rabto hadda kadib inay caruur geysato, please caruurtiina la socda. Gruubyo aan ku jiro oo Masaari leedahay aad iyo aad ay uga hadlayeen, aad iyo aad hooyooyinka Soomaaliyeed hooyo ka hadlaysa maana arkin runtii sareexa ilaa hooyo dhifa moogiye, laakiin hooyo gruub uga hadlaysa maana arkin. Taas waxaad moodaa inaan aad iyo aad uga hurudno. Qurbaan joognaa, wadankeeni wadan aan ahaynaan joognaa, wadankay ilmaheena ku dhasheen oo wadan aan ahaynaan keennay. Walaalayaal aan baraarugno oo nimanka Masaarida oo ilmaha inta idiin qaadaan waxay ku sameynayaan iyo wixii aan la aqoonin ha laga digtoonaado. Digniin beliis waa idinkaga digayaa. Caruurta aad nimanka Masaarida u dhiibaysaan iska ilaaliya. Cunugaaga waxaa ku fiican intaad Masar intuu dhiibto ku aamini lahayd inaad adigu bas la raacdo, inaad adigu ubar la raacdo, la dhibtootid adi meel walba adi aa geysatid. Laakiin ninaad u dhiibtay wuxuu yahay mataqaanid ninkaa hadda le aa aragte bidaaqadu kuu keensada xataa bidaaqo asileeya ahaa ma ogid. Marka walaalayaal aan digtoonaano, nimanka baabuurta loo dhiibayo aan iska ilaalino. Lacag weyba kaa bixisa haddii aad iskoolka ag degnaynin. Axsan baska iskoolka saaro. Baska iskoolka waqtiga ka soo qaada, waqtiga ku soo celinaya, yani intaasoo ilmahooda wax kale tood ma sameyn karo. Laakiin ninkan aan u dhiibatay ciyaalkaaga wuu kaala gembi karaa, meel walbuu gii karaa, wax walbuu ku sameyn karaa. Iska ilaaliya ayayna dheelaa Soomaaliyeed. Tan kaleetooda caruurta yaryar oo iskoolka noo dhigato, ilmaha yaryarkaa markii loo hanjabo way cabsoonayaan. Qisa hadda tan lamida hadda kor 13 sano ka hor waxaa maqlay inay UK ka dhacday. Marka hal iska ilaaliyo walaalayaalo, awlaad yaryar haysanaa iskoola u dirnaa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala horta amaano uga dhigaynaa. Cunug walba hooyo walba markuu subaxdii ka baxayo waa inay tiraahdo bismillaahi tawakkaltu cala Allah walaa xawla walaa quwwata illaa billah oo 3 mar aqri iyo xasbiya Allahu laa ilaaha illaa huwa calayhi tawakkaltu wa huwa rabbul carshil cadiim. Bismillaahi alladii laa yadurru maca ismihi shay'un fil ardi walaa fis samaa. Marka haddii midna uu 7 ka aqriyo midna uu 3 ka aqriyo ta kalena intuu rabo cunuga hal mar baa ka aqriyo subaxdaas oo dhan wuu xijaaban yahay wax sharaho dhan ma arkayo. Marka awlaada Ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ku amaaneysano, Ilaahay dartiisa aan dhulka looga soo wadnay u keena wadan muslim. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha noo xifdiyo. Waxaan rabaa tan kale waalidiinta qaar iyo hooyooyinka qaar maxaa la dhahaa waxay aad ugu gafayaan wadankan asi dadkoo dhan ma wada fiicin, wadan walbana waa saas. Marka hooyooyinka qaar yaa loogu yaa inta waxaan lidiin bedelo yaa lidinku nacsiinin wadanka. Tanoo kale meel walbay ka dhacdaa. Laakiin wake up call inay noo ahaataa loo baahan yahay oo digniin noo ahaato oo mar walba ka foljignaano oo meel walba oo ilmaha geenin ilmaha la socono. Marka Ilaahay subxaanahu wa tacaala Allah noo xifdiyo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala amaano uga dhigno mar walba. Astawdicukumullah alladii laa tawdiicu wadaaciina mar walba dhahna waaye oo awlaada aan ka tegayno maxaa la dhahaa ayaga naga tagayaan. Marka waalidiinta Soomaaliyeed oo Masar ku nool fiidiyowga hala wada gaarsiiyo insha Allah tacaala. Saan uga wada foljignaano arrintaas naxdinta leh oo fool xumada lehna wiilkaas yarka hooyadii dhashay Ilaahay subxaanahu wa tacaala yaa bihi dhalay iyo walaaloodba qalbiga Allah subxaanahu wa tacaala Allah u qaboojiyo. Annagana Ilaahay subxaanahu wa tacaala fidnadaas Allah naga magan geliyo. Meel walba waxaasoo kale way ka dhacaan, wadankeena ka dhacaan oo wadamada gaalada ka dhacaan, meel walba way ka dhacaan. Marka Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha naga nabad geliyo. Awlaadana Allah subxaanahu wa tacaala Allah noo xifdiyo. Haddii aad waalid tahay Masar ku cusub, please cunugaaga iskoolaas kaga bilaabin asoo luuqada waxba ka baranin. Marka hore dood luuqada Carabiga iyo Quraanka kula dadaal. Kadib markaad adigana wadanka fahanta asigana uu fahmo waxaad geysan kartaa goobaha waxbarashada. Laakiin Soomaaliya aad iyo aad wadanka Masar maanta markaas Soomaalina ugu bahdilanahay. Iskoolaadkana ilmeena inay wax baraan ugu maysa talagelin inay lacag ka qaataan kaliya ayay ugu talagaleen.
marka waa mahadsantihiin. Fiidiyowga meel dheer gaarsiiya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.